Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada qiimaha badan oo kusoo dhawaada kanaalka Bandhig. Waxaan ku soo gudbin doonaa maanta 5 ka mid ah xabsiyada adduunka ugu wanaagsan. 1. Xabsiga Bastoy. Bal ka waran haddii aad dambi gasho isla markaana lagugu xukumo xarig oo lagu geeyo goob aad moodaysid meel loo dalxiis tago. Arrintan waa mid ka jirta xabsiga Bastoy. Xabsigan wuxuu ku yaalaa jasiirad ku taala Norway, waxaana loo aqoonsaday xabsiga ugu wanaagsan uguna nolosha fiican dunida. Xabsiga Bastoy tirada dadka ku xiran kama badato 200 oo ruux. Dadka ku xiran xabsigan ciqaabtoodu waa inay ciyaaraan kubadda tenniska iyo inay qaataan neecawda qorraxda iyo inay ka shaqeeyaan beerta xabsiga. Taasina waa mid ay la wadaagaan dadka caadiga ah. Xabsigan waa mid baaxad weyn oo nadaafadiisana aad loo ilaaliyay. Dadka qaar ayaa ku fikira inay mar soo booqdaan xabsigan. 2. Xabsiga Liyubin. Xabsigan wuxuu ku yaalaa Australia, waxaana laga yaabaa markaad muuqaalkiisa kor eegto inaad moodid dhismo shirkadeed oo aad u ballaaran. Albaabka hore ee laga soo galo waxaa ku qoran qoraal dhahaya shakhsiyaadka bannaanka xorriyadda looga qaaday. Halkan waxay ka heli doonaan insaaniyad iyo ixtiraam uu leeyahay qof walba oo dunida dul saaran. Qof walba oo xabsileyda ka mid ah wuxuu leeyahay qol u gaar ah, TV, musqul iyo maktab khaas ah. 3. Xabsiga Otago, New Zealand. Nolosha xabsiga Otago dadka ku jira waa mid heer sare ah, waxaana ku baxa malaayiin dollar bil kasta. Qof walba oo ka mid ah xabsileyda waxa uu gaar u leeyahay sariirtiisa, TV-giisa. Waxaa sidoo kale loo ogolaaday in qof walba uu qolkiisa sidoo uu doono u qurxisan karo. Ciqaabta xabsigan taalo ayaa ah in la dejiyay nidaam waxbarasho oo adag oo ku saabsan xirfadaha sida cunto karinta, barashada korontada iyo beeraha. 4. Xabsiga Arinkhiyuth, Spain. Shaki kuma jiro in shakhsi hadduu dembi galo xabsina lagu xukumo intaasi micnaheedu ay tahay in ay kala fogaadaan asiga iyo reerkiisa, khaas ahaan haddii ay u joogaan carruur yaryar. Laakiin xabsigan waa midka keliya ee loo ogol yahay qofka xabsiga ku jiro in ay la joogaan reerkiisa. Halkaas ayay ku wada noolaanayaan, waqtina ku wada qaadanayaan. Xabsiga waa mid loo sii diyaariyay carruurta, laakiin carruurta marka ay gaaraan da'da 3 sano ayaa laga saaraa halkaas, iyadoo ay jiraan habab kale oo ay u soo booqan karaan qofka xabsiga ku jiro dadkiisa. 5. Jambo Dolon. Xabsigan waxaa horey loogu aqoonsaday inuu ka mid yahay xabsiyada adduunka ugu dadka badan. Waxaa halkaa ka jiray xaalad adag iyo cudurro ka dilaacay gudaha xabsiga, laakiin dowladda Switzerland ayaa ku qarash garaysay lacag gaaraysa 40 milyan oo dollar, kana dhigtay mid ka mid ah xabsiyada ugu quruxda badan caalamka. Dadka ku xiran hadda xabsigani noloshooda waa heer sare ah. intaas ayaan kusoo koobiyaa mawduucani maanta. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل. هلا مرحبا يا كرام الوجوه، لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر